dadka wax matarayaasha ee meelaha lagu sheegayo ee la leeyahay ama ISIS ama wixii la mid ah ama nidaamkaaga iyo siyaasaddaada iyo booliskaaga ka soo horjooda madaxweyne ilkahan ka daadilna gafuurkan feerkaga dhufana waa ku garab taagana waa mahadsantihiin qolka quraanka kariimka cadadkiisaan kugu salaamayna adiga iyo waftiga aad hogaaminaysaba salaan kadib maro laba door hadda u dambeysay aynu ku kulannay kaalo adna waad ballan qaadaysa annagana waad codsanayna inaad noo timaado alxamdulilah rabbil caalamiin galabta ilaahay baa sukan keenay waan xamdiyeynaa magacayguna waa qoran xuseen dool waa degmada Dhoboweyn oday ka mid ah odayaasha intaa markii aan ka gudbo madaxweyne galabta waa galab taariikh leh madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maalinkii koowaad ee uu soo dhex istaagay Dhoboweyn waa mid taariikh leh waa mid aan ku faraxsanahay waa mid aan ku xamdiyeynaa alle ee na soo gaarsiiyay cimriga intaa markaan ka gudbo imaatinkaaga umbaan nagu cusub imaatinkaaga umbaan u baahanayn baahi fara badan oo sii qabno oo aad moogtaan kuu sheegayna ma jirto intaa markii aan ka gudbo annaga baahida Dhoboweyn ee maanta jirta ee aduga aad ka socoto koodu hadda maanta waxaa ku jirta jidka degmooyinkanaga ilaa gobolkii laga xukumayna Allah ka dhigay aan ka go'ana waa intaa waa waayeel waxbaa la xusuusiyaa ilowsan yahay mooyaan waxa looma sheega baatay madaxweyne sidoo xubinkii ugu horeeyay Cabdixakiin Xaashi u sheegayba boqolkii sanada haliyay baa naga kacay Sayd Maxamed kii bedelay baa horta cimrigaaga Allah dheereeyo cimrigaaga Allah dheereeyo عليك واضح هاي الله فجود له أنت تكلم عن يسوع علم منه سياحة الله كعده عيدا كا نيجورس نيك أفكر بات نيك أوري بات نيك وناقة تسيبات ما حين سوق جالسين مانتو حين سوق جالسين بقول كي بقول نمط ما يسترن وعن نور سيدن بقول كي بقول سجاشن السجال هرمرك أصيم رهاي أو تيين لما يصير مويان واحد من بنوسجرين هذا دقيقة وين قبل يوم الله يحكمه كلا سيد النجاد وين يهلولي كلام بأمانة وأها أنا دروسنا وحنكون فكرة إن أكون همين إن هذا النجاد وين مشروع على قبطي ما نهو تابع قالوا عن فيلا إن مرلو إن ينتهي إن دقيقة وين لو البيرات كذي وكله مid ka qiimo badan ama la mid oo ka soo bixi doono wadanka sida ay mas'uuliyad saa u fikiraysa ilaahay nasiibaan ku mahadinaynaa buunta si aad dib loogu haysay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta qoradana bilowdayba inaguna waan la dhameystir doonaa taayada waxyaabaha maanta ka hadlayna ka mid maaha waxaan ka hadlayno waa meesha la yiraahdo jidka degmooyinka naga nagu xidha dadkaaga adaa kormeera duruuftiyo waysa adaa darso oo ogaada adaa dayabtu gargaara dadkaaga adaa kormeera duruuftiyo waysa adaa darso oo ogaada adaa dayabtu gargaara بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaan ka salaamahayaa madaxweynaha dawladda deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar iyo wafdida ballaaran oo hogaaminayo salaanka bacdi annagu hadaan nahay gabdhaha heer Dhoboweyn ama ummadda ku nool heer Dhoboweyn maanta waa maalin taariikh leh waa maalinkan dhalanay annagu maanta maalinkan dhalanay bay noo taanay mar haddaad maanta na hor fadhido oo duq iyo doon iyo ilmo yarba ay ku arkeen oo maanta adigii ku hor taagan yihiin horta waa maalinkan dhalan farxad baan
intaan dhaafnay maalinkaan dhalanay annagu ay tahay aniga magacayga waxaa la dhahaa waan ka tegay waris dhaqane cabdille waxaan halkan ka codsanhayaa madaxweyne gabdhaha heer dhooba weyn maanta maalin taariikhle inay u tahay iyo shacabka heer dhooba weyn magacaaga iyo aragtidaada iyo muuqdaadana ay maanta u tahay maalin qaali ah waxyaabaha aad haysid waxyaabo aan ka sheekayn karo ama aan hadda sheeko ku sheegi karo ma aha oon ka sheekayn karo dhihi karo saa iyo saa iyo saa iyo saa waxaana waad qabato waxaana waa tahay keliya wax kastaba intaad ka fikirtay yaad wax kastaba midhaheedii yaan maanta qurqurinaynaa wax kasta ood ka fikirtayba waxaad isku dayday inaan midhaheedii helo maanta markaan leeyahay midhaheedii baan helay dee dumarkii maxaan ahaan jiray maxaanse maanta joognaa waxaan leenahay annaga dumarka heer dhooba weyn waxaan ku leeyahay 65 xildhibaan oo haweenahan leen oo dumarahan leen heer qabal iyo heer degmaba marka xuquuqdanadii inaan helay markaas anagu aaminay sida aad ooga qabgelisay cid kasta oo xuquuq dumarka ay leedahay markaad soo saartayna cid kasta oo dumarana halkay joogto on bay kaaga hambalyeynaysaa kuguna farxaysaa waxaa weeye gabdhahan heer dhooba weyn maanta halkan fadhiya wax hadda aan leeyahay way u dhiman yihiin oo jannadii ahayn ma jiro aragtidaada keliya u dhimanayd wax kastaba way qabsadeen way soo mareen ayaga yaa hiil iyo hooba dawladdan wax kasta way ka soo mareen waxay sugayeen maanta aragtidaada ayay sugahayeen mar haddaad hor joogtana waxaan aaminsanahay inaad maanta adigu wixii ka dhiman aad ka dhammaystiri doonto u dhammaystiri doonto waxaa weeye waxaa ka dhiman ee la doonayn in loo dhammaystiro waxyaabaha mashaariicaha yaryarka in laga qaybgeliyaan doonaynaa gabdhaha heer dhooba weyn iyaguna kuwa wax qabsan kara waxna abuuran kara weeyaan halgan badan ay u soo mareen oo taariikh leh meeshana waa wax ay la ogyahay oo taariikhahoo qornayd waxaan aad iyo aad halkan ooga mahadcelinayaa ciidamada new boolis een ku gamaanay een ku seexanay een ku jiifsanay een maanta kullanayna waan u mahadcelinayaa marka aan leeyahay waxaan rabaa in hoos loo fiiriyo dan yar bay iska yihiin dhulbeereedna way leeyihiin dhulbeereedka ay leeyihiin in ayaguna ka faa'iidaystaan waxay uga faa'iidaysan lahaayeen ay helan weeye waxaan sheegayo marka madaxweyne kuma sii dheeraan hayo erey gaaban waqtigiisa la gaaban waan ku sugaynay waan ku soo dhawaynaynaa waana ku danaynaynaa aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa haddaan nahay gabdhaha heer dhooba weyn madaxweynaha deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo su'aalaha shacabka iyo codsiyadooda si faahfaahsan uga jawaabaya ayaa sheegay in ballanqaadyada ay xukuumaddu ka samayso dhanka horumarka ay si degdeg ah uga soo jawaabi doonto isla mar ahaantaana baahiyaha dhanka horumarinta asaasiga ay noqon doonaan kuwo si dhaqso ah ay jawaabtooda u helaan bulshada ku dhaqan degmada dhooba weyn كل واحد شعله هاي هذا حسوق وجري قرنا محاضرة سوق وجري كل سوق الشيء واحد بدل والأغنى هو حاجة محاضرة لأنك هرمركي وحلاقة قلب بدل عصرية هذا قلب كله بحاجة وضدن هذا تاجن هذا معمول وكهله وتلفك صادر أما عيدك قرنك قدومي قبلك يكيد دقمة أنتبه يجيبه وضعك إلى شنيو هالكن وحويا قلدي هذا سبيس كمبيني للشلواني ولا ديارات بسوقات إنه كهلو بهذا كسوقينا وعن كوال هالينا وأرنت قبلك دقمة يو ما كلاك عيدك أي كينان أهم حاكرة وضدنا حتى هالكلام قمرية وضدنا حلقة يا با إن هذه بقى الأحمرية أي مقدو بدن أي لا تمادو
shirkaddu taasay ka cararaysaa waxa weeye waxa laga yaabaa in magdhowga waxa ka cararayso marka in anagu isku noqonoon eegnoon dhaana warba magaalada halkay ka mari karto meelaan maxaan ku raaa ugu badan ay dubaynin ama meel interesleego odayaashii iyo shacabka la isleego in wadada meeshii la marin lahaa waa qodobkan u joogno way maanta oo meel aan saarno qodob kale nimanka hadda way joogan qolada hadda company-ga aad sabaan ku shirnay waxaan idhi anagu shacabka waan wada hadalnay odayaasha qoran oo ku jira waan jeclahay aan ku wada hadalay kaalud markii hawsha la bilaabayay qodobada soo dhigteen oo dhan inta badan waxaan ka jawaabnay waxaan ka jawaabi doono weeyaan dhanka horumarkay ahayd buundada ahayd buundada anagu lacag ka badan 50 milyan oo bir baan u haynaa buundada in lagu sameeyo hadda laakiin iyaga ayaa baryana gala wareegay oo yiri maxaan ku rahaa waxaan u baahanahay anagu inaan sameeyno 7 cisho ka shaqeeyay waxaan ku nidhi anagi lacag baan u qabanay buundadina waan sameynaynaa dadkuna way naga codsadeen marka waa maxay ma anaga noo daayay anaga sameynayna marka arkeen inay dadka ma taqaanaa buundada ku weyn tahay oo wax weyn ay tahay buundada sameeyay codsi ma harta ugu wareejiyay waxaan ku yiri ilaa kuwiina ila soo hadlaan ama warqad soo qoran oo yiraahdaan maadaama dadka ka ballan qaadnay ilaa warqada soo qortana tirahaan hadda sanadkiina dhaafisaan sameeyna weeyaan dib bay ma taqaan noqonaysaa laakiin aan sameynaysaa horta aan ka helo matamamaya iyo aaminaad way bixiyo wayna bilaabeen haddana arinta wadada ay taagan lacag meel kale loo dooni maayo tii aan buundada ugu talagalay oo dhoween aan u qabanay yaa taala tiin baa lagu sameeyay buundada lacagtii loo qabtay oo haddaan la isticmaalin dhacaysa ama waxa weeye meel kale loo bedeli meel kale intii loo bedeli lahaa waxaan u bedelaynaa xaggan baa loo bedeli aqliguna saa u keenay maadaama marka hore baarlamaanka deegaanka uu ansixiyay dhoween lacagtaan badan ee waxa weeye wilaan 50 milyan weeyaan oo buundada lagu sameeyay weeyaan oo hadda book budget ku jirta oo buundada dhoween maxaan ku rahaa sanadka markuu bilow ahaa baarlamaanku uu fariisanayay ee ugu horeysay maxaan ku rahaa inaan saxnay waxa la ansixiyay waa buundada 50 milyan weeyaan yaa ku baxaysa isaas ma taqaan lagu ansixiyay marka tii waxa loo bedeli wadada hadda waxa su'aal baan weydiinaynaa imika ma shilaabiga marka hore waxaan isku xidhnaa dhoween waxaan jeclahay aniga sayla qomo marka hore aan shilaabiga dhoween isku xidhno kadib aan noqotay qabridaha iyo dhoween laakiin marka hore shilaabiga dhoween waayo shilaabi waxaan u dhahay hadda inaad isku xidhantaan laamidii baa taalo shilaabiga dhoween marka qofku intuu shilaabo ka tago dhoween tago laamidii baa yaa taalo dhib yar marka hore intaan shilaabiga dhoween horeysiino oo wada caaqibada ka sameeyno oo muhiim ah laga sameeyo inaan maxaan ku raay oo waxa weeyaan tan kaalu dhex marto ka fiican tan ka sameeyno yaa waxa weey maxaan ku raay habeenii maalin baad mari doontaan hadii la yiraahdo habeenii maalin baad maraysaa waa wax hadda la bilaabi qodob kale ceelal aan shilaabo ka qodinayna way codsadeen anaga bixinayna ceeshana waxaan ku nidhi hadda shilaabo laga qodayo horta ceelasha waan qodinaa marka lacagta bixinaysan waayo qorshii waan tagnay iyagana anaga qodinay noo daaweynay oo ilaa iyadana 20 milyan oo shilaabo aan ugu talagalay ceelasha qodisteeda iyadina waxay leeyihiin mataqaanaa anaga qodina hadii maxaa ku ceelasha qodaan meel kale baa iyadana lagu bedeli doonaa hadii la yiraahdo anaga iyagana qodinay way leeyihiin okay taas waa taa waxa weeye maxaa ku inay reeday weyn bari ay noqon taajiriin adduunka caawisa waa wax iska cad taa cid la weydiin maayo in gaajo ay ka tatirmi waa wax iska cad marka horta taas waa taa ka deegan ahaanba dal ahaanba hantida adduunka ugu qaalisan Ilaahay ku siiyay isticmaal Ilaahay baa kugu manaystay oo dhoween ka dhigay waa maxay waxa weeye waa biyo iyo dhul baa adduunka ugu qaalisan biyo iyo dhul ma haystaan war dhul fiican oo dihin oo dawo u baahnayn oo wixii aan dafiraynin oo ku dafiraynin eegada oo ku dafiraynin oo kala cararaynin oo ku khayaanaynin oo waxaad gashato ku soo saari biyihii aad cabil lahayna aad hayso biyihii aad cabilay Ilaahayba ku siiyay kuma siin ma haysan sameeyay haddaba bariiska laga beero waa in intii laga iibiyaa waa in maxaa ku rahaa China aan geynaa waa in maxaa ku rahaa ku fikirta anigoo roodhow inay deegaanka dhan dhulka ugu qaalisan ha ku yaala waa ka dad raanaysan dhul la mid ma jiro maxaa marka wata qana hadda sideebad sawalo uga baqan Ilaahay baa ku dejiyay
وين هذا قفك الذهب كعنت كوهيستا هدول جرينين بكدرن دي واحد من ذهب إلى هاي ورث واحد نمعين اللي سي الله ينتصح الله ينبره وقفك هدوك سوليدا وقال سنة هنتي إلى هاي قعنت إنوجري وناكسن dadka kale ayna haysanin ilaahay hayna soo hoos dhulkeena lagu foorasano carrada laga qaado Ethiopia ee la meelaha ugu loo qaado yaa wax lagu beertaa horta waxaan sheegay wadama hada ina carrada ku dhufto marraba saxaraha oo tamuux iyo mataqaana xaani oo waxa wax u dhaaf aan jirin ayaa maxaan ku raajira hadana wax ka soo baxan xaani wax soo saar maaye carrada xagee la keenay diyaarada lagu qaadaa hada inta diyaarada laga qaado يا لقي سبح على كاسة واحد على صبحه يولينا قانديك أساسه كبحة ولينا قانديك قدرك قال كذا هديان كسر وصوص علينا وعرّ على نجاق هذا ما صوص هرت مرك لوكي الله يستوى هوش الله يستوى مرك وقت حوالين هنتدا أبوق على السنة إلينا هاي هنتدا أبوق على السنة ما تلينا هاي إلهي لسيه إن المحاك رأي حوالين أن كو الحمد لله إلهي أن ما هذا هو علم لو باين وأقولك النسي يبيها النسي سيمر هدوي تكفافا ما شو كفافا وهالكين وأدوي وي هالكين ما كنقول كاسة هالسنة قد كنقول كاسة أول وحكا صوب حاكم صومالي ولودو في شري هاتنا عالم كهلودو فيه وانقرأ كرنا تا حكومته وإذا كتشهيني حقيقيا مركي أن كبارين الساتلايت اللي جباري سدا خبرات أنت يباري سنجار ويناي صوصاتي بعد كده سال أقولي تصالحان أنا نبيه سدا أو شيفا بعد أنت على سبيل بقى قش على إلى ولا سمايا إلكترونية قلب على مسمايا وحصول نقدونا قلنا خبرات وحنا تستمر أنا بعد كلا سماين دونا محن كنا نجار ويناي صور نقدونا بيه بدن وصار أنت أو شيفان بدأ موسى صداع أيه كحولان تاي كلية إلنا سمايو ما لا سماين كرام مسلا ما سماين كرام ولا سماين كرام وأنا سمايننا ميزانية اللي بو سماين لها عدودي سماين لها عدي قبل لها حلي اللي قبل لها وقت اللي قبل لها أنت وانا هنا وأنا سمايننا دي لايلو أركب حوالين تاسويا sida idinku baa raali looga tiin baan anaguna 100% raali kanahay 100% weligeena anigu waxa weeye shakhsiyan hadaan hadlo dhoween runta markaad ii sheego xilli kasta dhoween maalin qudha qalbigayga ka bixin sababta looga bixin waa nabadgeliyo dhoween waa dad horumarineed marka xaqiiqiyan laga hadlo gobolka qoraxda meesha waxa weeyaan dadka sharafta leh ee ugu muhiimsan ku noolyihiin waxa weeye mataqaana ala hadda maaha awal baba xilligan waxaan ku waxa weeye dadku waxa weeye maxaan ku raay oo kala qaybsanaa oo waxaysna dhoween iyadu mid baa hadcad baana inta la soo galay baa reer dhoween shacabkoodii waxa weeye mataqaana dadka miisada ay maxaan ku leeyahay maanta maxaa ka jiro waxaan idin sheegay raggii maalintii soo galay dhoween dhibaateeyay halin oo maanta waxa weeye mataqaana aylaha kuwiis dhiibay ee yiri waa khaldan hal cafiidi ku cafideen oo ciidanka galay hadda joogo waxaan ka ahay ragga kale mid maanta ma taqaan laba lugood istaba dhigay ma jiro wata wala yaqaan habeen iyo maalin iyo xilli dhoween maalintii uban dhibaatada ku dhacday ilaahay cirkiga dhulka inta uga cadhooday wixii ku dhacay waa la ogaadi markaa dadna wada intay galeen oo waxa ay galeen oo waxa ay aasay u saareen oo dhibaateeyeen wixii ku dhacay waa la ogaado iyaga laftooda waxay yiraahdeen dhoween ma laga raacay ilaahay dhibkan u geysan mid ka raacay waa la yaqaanaa mid ka raacay iyo mid maanta taqaano ku nool midna ma jiro horta waa dadkii maalintii galay daalinin bay ahaayeen meeshii ku dambeeyay ma taqaana salaam min waxa weeye maxaan ku raacay mid kasta carabka ka soo dhacay mid dhiga beelay mid carabka ka soo dhacay mid isagoo indhala la qabtay waa la yaqaanaa carabka kaas raadiyo ragii maalintii wax sabay balin maxaa ku kuwa idin kala cafideen oo dhowr iyo 10 waxaan ka ahayn
intii kale mid kasta carabku ma ka soo dhacay dhigaa ka soo dhacay waa kiniya taar waxa la sheegay dub ka carray oo malaha kiniya joojo dubkooda ka carray daalin baa Soomaali daalin baa marka waxa hore taasna wada galaysan dad fiican oo sharaf leh tiina waan qiraynaa wallahi inay naga hay mataqaana ku kasbo laakiin anigu waxaan aaminsanahay in dad sharaf leh oo ixtiraam leh oo wanaagsan oo dadka kalena ixtiraama gudahooda is ixtiraama sharaf leh tiina cid kasta ka dhaadhacsan taas waa wax la hubo inaad noolaataan oo waxshaan oo noolaataan baan jecelahay ilaahayna ka baryanaa in dhowii loo soo shaqo tago oo caalamku soo shaqo tago halku loo soo shaqo tago ilaahay ka baryanaa deegaanka loo soo shaqo tagaan ka baryanaa gobolka loo soo shaqo tago caalamku noqdo meesha adduunka laga caawinayo ilaahay ka baryanaa waxa ilaahay baryanaa waa keenayaa waxa qorshihii iyo tii ilaahay baryadeeda isku wadayaan ku howlgelinaa labadiiba waan isku daraynaa saas wuxuu nagu suurtoobi marka hadaba tii inagoo waxa weeye baryada ilaahay iyo nidaamkii wadna ayaan maxaa kula ku howlgelinaa iyo kalsoonidii shacabka iyo tii dowladda oo isku haysan ayaan ku howlgelinaa sidaasaan isku wadaadinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wafdiga oo nasasho gaaban iyo salaan ku qaatay xarunta ciidamada gaarka ee liyu booliska ee degmada Dhooboweyn ayaa mid ka mid ah halyeeyada gaarka ee liyu booliska hees wadani jacayl ah ku soo dhaweeyay wafdigii hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar dadkayga dantiiniyo dawadiini baanahay dugsi lagu ladanahay من قبيل ديدو اسكو دوم لجعلو نبدون يا نهي دادا سكريسيو دمرك يا عيالكو لبديد راعنا يكدوف سوليغا دويا كاردين ننترى لهايو نكداهنايو دلكي وحروبي وحدي ريس كاني حري دك غريق يسري دنت خلقوي دلك هي دلكيو بيسان قدرتي داعد باهي داعد باهي dalka iyo dadkaygo diintan ku dhaartay daacad baan idin lahay